waxa waaye xilalka la iska qaadin bay kamid tahay fanka iyo macalinimada inta kale waa la isjiida waa ogtiin saaxiibkay faqiya joogan wixii Allah wixii iyaga ay u bogi waayeen subaxnimadii inay kala tuuraan rabaan in kasta beerdhawada qalbiga ka xantay waxaan idin saaxiibkay mahad iyo maarta iyo faqi iyo rag baarlamaanada noogu kulkulan in bardiyaasha ka ciyaarayay waqti waxaan arkay nimankii xascal khayro oo dhuuso mareeb cadale iirona ee dhahayo cadaado meel walba halkaas uu sii marayo magaalo walba uu ku salaamay maartay dadkeeda maartay slogan gaar ah war aawiyaan anaga dadkii inta nagu wareeriyo xagga kulli waa la qaylino soo dhawo oo ka anaga leeman dhuminaysayna meeshaan hadii ay marmarka qaar waa la isku ganaaxay xilalka faraha badan is daba dhigtid marka bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa gudoomiyaha xisbiga mid qaran Dr. Cabdinuur oo runtii amaan iyo sheegid ka dhan oo taariikhdiisa iyo kooban nala siiyay inta meesha fadhidane saaxiibada uu leeyahayna nin horay la soo shaqeeyay nin hadda la shaqeyn doonaba inta aan meesha ku fadhino ama golayaasha dawladda oo saaxiibadayda labada aqalka sare iyo golaha shacabka xubnaha bulshada ugu muhiimsan ee aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka bahda fanka fanaanka cududkiisa sitaa oo aan qaybtaas oo aan marna ilaabaynin oo aan mar waliba aan cadeynayo sababteedana aan sheegi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan fanaanka iyo cududkiisa aanu halmaamaynin inta hadda meel laga sheego haddaan soo istaago habeenkii aniga aan is sheegay waxaa fadhiyay saaxiibkayga ambassador faqi oo wax badan taqaaniin haddana nagula jira golaha shacabka marna jihazul amniga madax ka ah dalka habeenkaasi waxay ahayd nin dhalinyaro oo reer u dhig la ahaa dadkan mugtahay oo meelaha dheer abiyaala iska ah haddii xil laga qaado ayaga waxa waaye waa xoogaa yar xataa dhaqdhaqaaq yar oo xanaaqi kama muuqanayo waqtigeeda inta ku ekaay waa ku wareejiyay saaxiibkayga aniga hadda gudoomiye miyi uga baxay martaa markaas waxaan idhi wareer kan waxba ma ka faa'iideysanin miyaa si reer mudug intii la joogay war waxaasi aniga waa ka haray iyo waa ka degay iyo waa laga qaaday ma jirto hadday ku dhaafto xataa ahaan jiray la ku darsanaysaan marka waxa waaye waxaan idhi aniga haddee berigii marxuum cabdillaahi yuusuf waqtigiisii gudoomiye ku-xigeen koowaad aniga aan ahaa fursada ay soo martay fursadaasi shariif xasanna waa xoogaa yar waa naga maqnaa gudoomiye baarlamaanku ahaa 3 bilood ayaa xamar aniga cadagaawo kaligeen ku baashaalayn waxba yay iga soo geline idaacadda raadiyaha marka la yiraahdo kusimaha madaxweynaha qaranka mudane maxamed cumar dalxa ani waa ku qabaanay jiritaas point 5 matalin ay mar laha iga harto bahasha warka waxaan iri hadda dadka waxaan ugu jecelahay ninka ii soo tiriyaan aan yiraahdo kusimihii madaxweynaha qaranka gudoomiyihii baarlamaanka kusimihiisii gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee hore wasiirkii arrimaha bulshada ee hore laakiin hal cilada jirto oo kulli waxyo dhan waxay noqdeen asaatiir alawwaliin laakiin waxaan iri laban ku mintido hayaa waxaan ahaa baan iri macallin lecturer ah ee jaamacadda ummadda wax ka dhigi jiray kulliyadda luqadaha part-time ku ah kulliyadda saxaafadda part-time ku ah maahadkii alesko ee jaamacadda carabta ee bariga afrika
iyo wixii kala soo raaca markaan dhalinyarada ahaane heestayda shankaroon waa tuuran jiray hadda mooshin la iga keeniyaa la igama keenina carwaa ka professor dalxa ninka iga qaadi halay rabo fanaanka markuu soo galay cuudku igu salaamay qalbiga waxaan ka qaaday heestii ahayd ayaam zaman kaanad ayaam li fiha qissa garam marka waxa waaye xilalkan la iska qaadin bay ka mid tahay fanka iyo macallinnimada inta kale waa la isjiida waa ogtihiin saaxiibkay faqiya joogan wixii Allah wixii iyaga ay u bogi waayeen subaxnimadii inay kala tuuraan rabaan inkasta beerdhawada qalbiga ka xantay waxaan idhi saaxiibkay maad iyo maartay iyo faqi iyo rag baarlamaanada noogu kulkulan ee nabardiyaasha ka ciyaaraya mugta waxaan arkay nimankii ninka xascal khayro oo dhuuso bareeb cadale kulli cadale iirona ee dhahayo cadaado meel walba halkaas uu sii marayo magaalo walba uu ku salaamayo maartay dadkeeda maartay slogan gaar ah war aawiyaan anaga dadkii inta nagu wareeriyay xagga kulli waa la qaylino hal soo dhawo oo ka anaga leeman dhuminaysay inaan meesha marka waxa waaye reer midug wax badan laga barto ani waa u sheegay xataa maamahaya xamar waa in la bedelaa dhiri afdaboolan dahab saan u leen waa ku qadnay maxaa dhacay meeshan dad qeylshaam ma qado maamaadooda ay baadeen tolkaada kuma gabaye afkaaga yuusan ku gabin niman hadlin hooyadii qadisay ma gartay indhaadeeg waa raasumaal ceebi waa laba afmaroojis marka meeshan haddii maanta oo dhan anaga aan ku jirno iimaan alla uur buuxi waana la dardara marka xisbiga waxaan aad ugu danaynayna maadaama cadaalad ugu soo daray dadka qayliya iyo dadka afgaaban xaqooda sawsifileed ana laga rabaa laakiin hadda waxa waaye dad badan oo jaamacadda mudug nooga soo baxaya jir laftirkeeda ishayna far ma gelayso point 5 dambana ma maqli karno waxyaabaha ee ugu badan ee dhibaatada maanta taala xisbigana maanta laga dhawaajiyay mabda'iyan waa soo dhaweynaynaa Dr. Cabdinuur waxaan ku leenahay ilaahay ka dhigo xisbigaaga iyo adiga ragga kula maartay ee wadaaga kuwii fuliya mabaadi'da xisbiga waxyaabaha ugu weyn ee cadaaladda ee Soomaaliya meesha ay maanta ka dhutinayso waa والعدالة هي أساس الحكم خدانا العدالة أمضي لهين ميل مقاريس وحي أيدي سميستان وبيت العنكبوت لهين وحيري وإن أوهن البيوت إلا بيت العنكبوت وحلا بسجوري وجه العسم وجوري عار بستي ميل أنا عدالة دي أولين نضل نمطال سومالي وحلا الدقيق ونوبل هاي إن عدالة درتها حزبي كستا الصوماليات وكجرتا كلمة داس وأنا ودنك كجر اللي أجي بربر كان سببه لكن هذانا كدغن كذي ولا لا أنت نصوم مرتي أما مدحنا نقطة أما حيلها سوق قبطة وكلا إوهوين أريا معانك بدن عدالة ده دقيهنا أيانا لو علايو رجل يا عدالة اسمرك أن مقلنه يا وحن كجرنا دتك سيدا ما أرتي بأنا أطابتي عدالة درده الله إلي كان وقتك عيل بليد وانتان أيان يدك شنا واد وقتها هاي دي بوجي سنتي أخرى صوماليا وحال لقد لكتي عدالة درو إن لي يرى هذا ودن كان عدالة دران حلقو قاري كارنا وحل لما ربيه أي حق لما ربيه حلال ربا يا ميل حق درتها له إني سنحل إيمانين عد ولي بوي أكتاي ما أنت نوحل ربا إن لقى قدبه وأحزابتن سياسة ذات إلا الرياضين يوحواي نوال بوحي أساق إلهي ضدني ما أوقلي كي أقوم تيسا وحكو قوية يكي عقليس وحكو قويستا يكي ضدني ما ديس أخلاق ديس أما قبراهات أقتام ويلا نقض حكو قوستا إني وحكوها شو حق هذا لكن وحيابها مانتا أنك ويا أرجع أن أنهي ولي isbedel aan sugayn ayaa waxay tahay cadaaladaasi ilaahay xisbigan iyo inta kale ee ku taamayso wadankan inay badbaadiyaan waxaan isleenahay arintaasi waa inay noqotaa mid laga dhabeeyo Dr. Cabdinuur dadaalaba gaari doonay ayaan maqli jiray
waxaan filayaa tusaale dad Soomaaliyeed oo ayaga cadaalad darro ka qostay ama cadaalad darro yani quursi gaarsiisay ayaa nin ka mid ah ayaa wuxuu rabay inuu qof kale u yiraahdo warniyahow waxa adiga ku taamaysid waxba ha eegin hadii laga sid bursadayna iimaanka Allah ku gariya iska aamu markaas uu maxaad leedahay waxaan ku leeyahay wiiri horta adi baasha jeer la yiraahdo waliga ma aragti wiirno ma se taqaana meesha ay ku nooshahayna waa aqaana wiiri jeer wabigayna ku nooshahay banaankan way daaqdaa waxaas ku weydiinayna haddaan ku dildilaacay wuxuu yiri horta jeer yaa uumi wiiri ma taqaana jeer yaa uumi markaas uu yiri jeer yaa uumiya wuxuu jeer yaa uumi maxay leedahay ma yaa uumi ka jawaabay markaas wuxuu yiri wallahi hadda wuxuu yiri jeer wax uumay lama yaqaan ayadile meesha iska joogto yiri adiga jeer oo kala tahay wiirno meesha inaad iska joogtid ma ahane cid kugu tala gashay inaad wax noqotid inaad wax ahaatid heerkaas la gaarsay ma jirtee adiga iyo jeer isku mid atiin ma gartay maanta waxa ku jirto eray far badan oo ay dadka Soomaaliyeed ay ku kala tageen ay ku kala irdhoobeen midnimo la'aan xaqiraad discrimination direct and indirect waxa soo dhan waxaad xustay in mabaadi'daada ay kamid tahay xisbigan uu noqon doono mid Soomaaliya u horseeda ilaahay ku la garab galo anaga maanta laba aqalan ku fadhina halkan mid golaha shacabka iyo mid aqalka sare golihii shacabka ayaan cadaalad darro waxaan ka tirsanaynay 4.5 aqalka sare yimid waa sax aan lahayn 4.1 aan la dhigo markaan saas aan ku leeyahay ninaan u jecelahay aqalka sare ee wax badan nala soo shaqeeyay oo aan isku doon saarnaan jirnay Cabdikaafi iyo joog halkan ma rumaysanaysaan 54 xubnood ee aqalka sare uu ka kooban yahay 0.5 kiina hal qof kuliin hal qof ya labo ma jir hal way halka kale gadaal ka soo turteen martay qolkii oo ku am sheegi jiray oo noqdayno waxa way qofkii la iska soo fogeynay buu caleeyay dadkaas u tag ma gartay ala kulli xaal waxaan aad u rajaynaynaa in xisbigan inuu wax ka bedelo annaga naftirkeena saaxiibkayga beena waxa u malaynayaa asigan xisbi kuma jiro anigan xisbi kuma jiro maraan hoos u sheekaysanay waxaan ku jirnaa baaritaan ka idin anfici doono maalintii laakiin xisbigan ayaa xisbigii labaad aan ka soo qayb galo wali xisbi kale oo aniga aan nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo ma jirto xisbigan xoogaa waa mahadiyayo rag fara badan oo aqoon yahan oo reer beled u badan iyo gabdho qurqurxoon aan uga jeedaay kan inaan ku soo kan inaan ka soo dhawaan doona u malaynayaa marka aadan doctore adiga iyo xisbigaaga iyo inta kula ma aragtay ee runtii wadaagta ayadoo rag fara badan oo qiimo leh ay fadhiyaan halkan wasiiro soo ahaa saaxiibkayga baafa iyo ragii kaabiradii baarlamaanka Soomaaliyeed golihii aqalka sare iyo golihii shacabkana ay joogaan bahadii saxaafadda oo intii ugu ayagana khatarsaneyd oo Xasan Cadde iyo TV Somali Cable ayagana waa joogaan عوض وحن أملينا يا فيسبوك أنا قاعد سكيلان دونه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبو مهندسين هاي بروفيسور محمد عمر دلحة سياسيين كلنا وأي فديان كل شكل وأي النظام بين دونتا